siyaasiga caanka ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu talo u soo jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dhinaca kalena waxa uu hoga tusaaleeyay bulshada Soomaaliyeed isagoo ka hadlay xaaladda amniga dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxyaabaha uu sida weyn uga hadlay waxaa ka mid ah arrin uu ku sheegay isku milanka dhanka fikirka ee loo baahan yahay dhinaca bulshada iyo dowladaba in si weyn looga hufo. qoraal uu soo dhigay barihiisa bulshada ayaa waxa uu ku tilmaamay marka la eego qaraxyada lagu hoobtay ee ka dhacay Muqdisho, dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed ee mar walba marqaatiga ka noqdaan iyo waliba kuwa lagu waayo bulshada Soomaaliyeed ee waxtarka ah iyo kuwa waxgalka ah ee dhalinyarada. waxa uu sheegay in loo baahan yahay in fikirka kooxda shabaab ee meel kasta galay loo baahan yahay marka ugu horeysa in laga saaro. waxa uu talo u soo jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda uu hogaamiyo iyo dhinaca kale laamaha amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. haddaba qoraalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame maxaa xilligan xasaasiga ah ku soo aadiyay dowladda federaalka ee Soomaaliya xilli ay sheegtay sidoo kale in saraakiil loo xiray dayacii amni ee ka dhashay weerarkii lagu qaaday xeebta Liido ee magaalada Muqdisho, kaasi oo lagu waayay dad fara badan oo shacab oo waxgal ahaa una badnaa dhalinyaro waxbaratay oo ku noolayd magaalada Muqdisho. haddaba arrimahaasi ayaan ku eegi doonaa guud ahaan barnaamijka. meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leeyahay soo dhawaada YouTube-kana ku soo biiro oo subscribe saara, isla markaana muuqaalka like saara lana wadaaga saaxiibadiina oo share dhaha. waa Cabdilcasiis Barrow mar kale idile soo dhawaada. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo dhowr jeer oo hore isu soo taagay xilka ugu sarreeya ee Soomaaliya, haddana ah mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka, ayaa waxa uu ka hadlay weerarkii ka dhacay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho markii labaad. qoraalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo hadda soo saaray waxa uu ku tilmaamay in loo baahan yahay bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ahba in si wada jira markan loo shaqeeyo, isla markaana la xisaabtan dhinaca amniga ah la sameeyo, loona baahan yahay dadka hoosaasiya bulshada ee hagardaameeya sida uu hadalka u dhigay in cadaaladda markan ay hor yimaadaan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu su'aal geliyay sida amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka loo sugi karo xilli buu yiri dad badan oo fikirkaasi aaminsan ay qayb ka yihiin ganacsatada, isla markaana sidoo kale ay ka shaqeeyaan qaybo ka mid ah dowladda federaalka sida uu hadalka u dhigay qoraalkiisana ka muuqatay. waxa uu soo jeediyay talo ku aadan in dhinac kasta markan loo baahan yahay in la dagaalanka fikirka kooxda shabaab laga wajaho. waxa uu soo qaatay dhinaca masaajidda iyo madaarista wax lagu baro caruurta Soomaaliya iyo goobaha cibaadada. tallaabadaasi oo u muuqata mid hadda ay culimada Soomaaliyeed aad uga shaqeynayaan. maalmihii ugu dambeysay doodo iyo kulamo lagu qabtay magaalada Muqdishona culimadu ay ku sheegeen. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu sidoo kale qoraalkiisa ku tilmaamay in bulshada Soomaaliyeed qudhooda loo baahan yahay inay kaalin ku yeeshaan sugitaanka amnigooda iyo la xisaabtanka dowladda uu hogaamiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. qoraalkiisana waxa uu ku yiri sida toddobaadkii hore argagixisada 100 ka badan ayaa looga dilay furinta dagaalka ee Jubbaland, iyagana dad badan ayay kaga arguteen shacabka xeebta Liido u soo neecawsi tagay. qoraalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu sidoo kale ku leeyahay sidan: waa fuliyaal ka been sheega in ay shisheeye soo duulay iyo dowlad garab siisa ay la dirirayaan. waxaase mudan in aan su'aal iska weydiino sababta sahlay in argagixisada sanado badan nagu dhex noolaato. halkaas waxa uu saaray calaamad su'aal. isagoo sii hadlaya mar kale wuxuu yidhi waxaa jira dalal kale oo hortaya iyo kadibkeenba argagixisadu heshay, balse ka lug baxay oo maanta nabad ah oo ammaan ah. soo ma habboona in aan dhabta wajahno, runtana iska sheegno, oo kuwa la fikirka ah ee masaajidda ka qudbeeya ama mansabka dowladda haya, kuwa ganacsatada sheegta ee taageera ama canshuurta siiya, kuwa kartidarrada noogu baylahiya ee xilalka dowladda ka macaasha,
iyo kuwa hoggaan xumada nagu hoosaasiyaba. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu bannaanka keenay weydiimahaasi xilli dowladda federaalka ee Soomaaliya ay horey u sheegtay in shabaab ay kala dagaalamayso dhowr jiho oo kala duwan. waxay dowladdu hore u sheegtay shabaab inay kala dagaalamayso dhinaca mabda'a iyo fikirka diiniga ah iyadoo kulamo u qabatay culimada kala duwan ee Soomaaliyeed. laba kulan ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho intii uu talada joogay madaxweyne xasan sheekh maxamuud, kaasi oo culimada Soomaaliyeed ay diiradda ku saarayeen fikirka kooxdan iyo sida dowladda Soomaaliyaba fikirkaasi kooxda ay kala dagaalami karto. culimada ayaa soo saaray fataawi diini ah, waxa ay doorkooda ciyaareen kaalin muhiim ah iyagoo bulshada Soomaaliyeed u sheegay in dagaalka ka soconaya Soomaaliya aanu ahayn sida kooxda al-shabaab u sheegayso, isla markaana qofkii ku dhinta uu yahay mid aan wanaagsanayn. waxa ay sidoo kale kooxda shabaab ay ku tilmaameen kuwa qaarijiyiin ah sida culimadu ay tilmaameen, isla markaana loo baahan yahay bulshada Soomaaliyeed inay ka fiirsadaan, isla markaana aan lala macaamili karin sida hadalkii culimada ka soo baxay shirarkii kala duwanaa ay ku qabteen magaalada Muqdisho. dowladda federaalka waxay hore u sheegtay in sidoo kale shabaab ay kala dagaalamaysa dhinaca maaliyadda iyo dakhliga. akawno badan ayaa la xayiray, sidoo kalena dowladdu waxay sheegtay in indhaha ku hayso dhaqdhaqaaqa dhinaca maaliyadda ee bangiyada dhexmara iyo sidoo kale inaan canshuur la siin karin kooxdaasi. midda kalese waxa uu ahaa furin horey u furnayd oo ay dowladduba dhowr jeeroo hore sheegtay inay waday, waa dagaalka al-shabaab, kaasi oo militari ahaan looga saaray dhul ballaaran oo kasoo bilaabanaya min mudug ilaa laga soo gaaro magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. deegaanadaasi oo kooxda shabaab ay ku dagaalamayeen waxaa sidoo kale hadda dagaalada ugu badan ay ka dhacayaan Jubbaland iyo sidoo kale deegaano ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhowr goor oo hore waxa uu tilmaamay in haba yaraatee ee dowladdiisu aanay aqbali doonin in wax heshiisa ay la gasho shabaab inta xaaladdu ay sidan u muuqato. inkastoo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo su'aalahani bannaanka keenay, haddana waxaa la eegi doonaa sida dowladda federaalka ee Soomaaliya ay afkaar uga qaadato, isla markaana loogu dhisa amniga dalka iyo dhinaca wacyiga bulshadaba, taasi oo dowladda la eegayo sida tallaabadaasi ay u qaado. dhinaca kale Muqdisho waxaa biri la filayaa inuu ka dhaco dibadbax weyn oo looga soo horjeedo weerarkii ka dhacay xeebta Liido, taasi oo noloshooda khilaaftay dad fara badan oo waxtar ah, kuwaasi oo mustaqbalkooda uun hadda naawilaya inay meel fiican u raraan. dhalinyaro fara badan oo waxbaratay iyo kuwa markaa nolosha u cusbayd ayuu qaraxii ka dhacay Liido iyo weerarkii isla socdaba noloshooda ku waayay. dowladduse waxaa la eegayaa marka dibadbax uu dhaca kadib ballanqaadyada ay samaysay iyo waxa ka fula. soo dhawaada akhyaarta nala socotaay, maxay idinla tahay talooyinka ay bixinayaan dadka mucaaradka ku ah dowladda balse ah siyaasiyiinta saameynta leh? hadalka cabdiraxmaan cabdishakuurse maxaa hadda lagu fasiri karaa marka la eego xaaladda taagan iyo weliba shaqooyinka u yaala laamaha amniga? waa cabdicasiis barrow idin leh. soo dhawaada saaxiibayaal, ku soo biira YouTube channelkan oo subscribe dhaha, like saara muuqaalka, sidoo kalena share gareeya. aragtideenu waa muhiim, hoosna ugu reeba.